من قلوب زادها الحب نقاء. ومناسبة قلن جبينتا دفعدي صدحية وبنات حفتها قرآن كريم كلام ميستا محد كبرشة حفتها قرآن كريم كعلومتيسا محد خليل الحسري مقالة دارقيسا. خلقنا قيمون مثل سحب الشوق طرنا كالغمام وبإبداع سعينا للأمام. ديننا دين الرقي والسلام إننا قوم خلقنا قيمون من قلوب زادها الحب نقاء. قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسناء. إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا قيمون. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا قيمون من قلوب زادها الحب نقاء. قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسناء. إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا قيمون. كل قلب عاش لله سليم يحفظ النفس بقرآن عظيم ويؤدي سنة الهادي الكريم. إننا قوم خلقنا قيمون بقلوب زادها الحب نقاء. قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسناء. إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا قيمون. فاطلبوا العلم فإنا مسلمين وبدين الله دوما عاملين. كدوان لبيا قطن أرضي سجود شرق بدي ويلل كواسو مدة ظفر بدن حفتنا هي بقولي أفريتو بقى صورة ayaa maanta munaasabadan lagu qabtay hotel Adamis ee magaalada Hargeysa. sidoo kale munaasabadan ayaa shahaadada ifaadada la siinayay ku dhawaad 7 arday kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal jisaska kala duwan ee xifdiga Quraanka Kariimka yana soo qaybay. hadaba munaasabadan oo si meeqaamkeedu aad u sareyso loo soo agaasimay isla markaana lagu soo casuumay marti sharaf aad u qiimo badan kuwaas oo isugu jira culimaawidiin waxgarad xildhibaano aqoon-yahano مسؤولين iyo waalidiinta kala duwan ee ubadkooda xifdiga Quraanka Kariimka ka barto. labada qaybood ee maxadka Khaliil al-Husari ayaa ugu horeyn baa munaasabadani waxa furay maamulka guud ee maxadka Khaliil al-Husari Ustaad Sheekh Ali Cabdullaahi Cilmi Cali Wadaad waxaana uu ka warbixiyay ujeedka munaasabadani iyo maraaxishii kala duwan ee uu soo maray maxadkani intii uu aasaasnaa iyo dufcaadka kala duwan ee ka qalin qaatay isla markaana ka xifdiyay kalaamka Ilaahay. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Khaliil al-Husari waxa la aasaasay 2008 bishii Afraad 26 ayaa lagu aasaasay October 8 ku taariikh halkii ay ka soo aasaasay. madrasadu waxay awoodda saartaa xifdiga Quraanka iyo tajwiidka. arday badan ayaa Quraanka ka dhameysay muddada ay furnayd 385 arday ayaa Quraanka ka dhameeyay. qaarkood macallimiin ay ka yihiin markaska imaka hadda. qaarkood meelo gaar ah ayay furteen madaaris gaar ah oo iyagu ay maamulaan. qaarkood masaajidda ayay imaam ka yihiin. marka waa arrin muuqata weeye. maanta ardayda Quraanka dhameysay tiradoodu waa 250 arday weeye oo iskugu jira hablo iyo inna. Quraanka kuwa kala baray amba 20 jis waa 80 arday weeye. isku geyn maanta shahaadada Quraanka waxa qaadanaya 130 arday. macaayida Khaliil al-Husari tirada harta dhigata tirada ardaydu waa 700 arday. waxa dhiga macaayida 23 macallin ayaa hadda macaayida Khaliil al-Husari dhiga. waxa jirta arday ijaasa iyaguna wada oo maxadku uu ka bixiyo oo gabagaba ah in ijaasada ay qaataan. maxadku wuxuu leeyahay ikhtibaar billah oo bil kasta la qaado oo lagu qiimeynayo ardayga iyo sidoo ku socday.
kormeerna uu leeyahay. ardaydii qiimaha badneed ee ka socotay maxadka barashada xifdiga quraanka kariimka ee culumtiisa ee Khaliil al-Xusari ee maanta munaasabadan lagu qabtay Hotel Adamis ayaa bandhig aqooneed aad u kala duwan ku soo bandhigay intii madashu socotay mas'uuliyiintii qiimaha badnaa ee munaasabadani lagu soo casuumay oo kamid ahaa Sheekh Maxamed Aadan Xildhibaan Axmed Dayib Sheekh Cabdiraxmaan Aadan Cige ganacsato mas'uuliyiin ayaa iyaguna kelmado aad u qiimo badan madasha ka soo jeediyay waxaana ay dardaaran iyo ducay u soo jeediyeen maamulka waliba macallimiinta kala duwan ee ardaydani ku soo dadaalay isla markaana baray kalaamka Ilaahay waxay sidoo kale waalidiinta iyo ardaydaba ay uga warameen fadhiga uu leeyahay qofka barta quraanka kariimka waxaana hadalladoodii kamid ahaa hargeysa in quraanku ka hirgalo in badan baan u fakarnay daaru quraan baan ka furnay garbihi aan ku duulay ee quraanka ila fidiyay ayuha habeenkii uu naga baxay ee uu madrasadan furay xaflad weyn ayaan u qabanay macalinka oo city center ugu qabanay isagoo ka soo gaadhay macallin intuu soo noqday ilaa kormeere ka noqday daarul quraan abaalkiisa uu leeyahay macallinkiisina uu abaalguday cali wadaad macallinkiisi wax baray oo aniga aan wii abaalguday quraankiina uu fidiyay ku balay ilaa adduunku ma naan ballameyn quraankiina uu fidiyay waxa la doonayaa kuwa quraanka ka qaadi lahaa inaad ku noqotaan ee akhlaaqda ka qaadi lahaa ee madrasadaha iyo quraanka kor u qaadi lahaa kitaabkii quraanka kariimka ahaa ayaa dul martay waxay idinta la hawl weyn oo ah inaad itqaankii samaysaan inaad tasxiixa iyo ijaasadka qaadataan inaad culumtiisii faraha badnayd aad barataan hawl badan baa idinta la xil weyn baa maanta idin fuulay xilkaas oo u baahan dabaraday iyo sabir iyo dadaal intii hore ka weyn oo ka balaaran oo ka badan marka dadaalkaasi ku talagala inaad bilow tihiin oo idaan quraankii dhammayn oo hawliidina oolin ha u qaadanina quraanka hawshiisii maanta idin bilaabantay hooyooyinka runta waxaa loo baahan yahay carruurta inay la socdaan ilmaha uu cidda u raacayo cidda uu la saaxiibka yahay inantaada waad ka warhaysaa akhlaaqiyaadkeeda dhaqankeeda halka ay marayso waa runtii dadaal badan baa ina saaran waajib badan baa layna saaran waxaa laynaga runtii mas-uuliyadda ayna saaran inuu ka soo baxin كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أفضل والراعي والمسؤول وحلال من الراعين إلى سبحانه وتعالى والدينية إلى سبحانه وتعالى قوة كائنه إلى اليوم markii la soo gaaray guniga gunaanadkii munaasabadani waxaa hadiyada aad u qiimo badan lagu maamuusay afartii arday ee kaalmaha ugu horeeya ka soo galay ardaydan maanta ka qalin qaadatay isla markaana xifdiday kalaamka Ilaahay halka la maamuusay 52 arday ee xifdiga quraanka kariimka dhamaystay iyadoo lagu maamuusay shahaadada khatmiga quraanka kariimka ku dhawaad 70 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaas oo jisaska kala duwan ee xifdiga quraanka kariimka yana soo qaybay ayaa munaasabadan lagu siiyay shahaadada ifaadada maamulka maxadka Khaliil al-Xusari ustaad Cali Cabdilaahi Cilmi Cali Wadaad ayaa dhankiisa maamuusay 8 waalid oo ahaa waalidiintii sida agar la'aanta ay ula soo shaqeeyay maxadka intii daraasadu ka socotay isla markaana ardaydani la barayay kalaamka Ilaahay sidoo kale ardayda kala duwan ee ka socotay maxadka Khaliil al-Xusari ayaa dhankooda maamuusay maamulkoodii waliba macallimiintoodii jaadka ka soo saaray kuwaas oo hadiyada aad u qiimo badan ku maamuusay isla markaana kaga farxiyay maxadka Khaliil al-Xusari ayaa ka mid ah goobaha lagu barto kalaamka Ilaahay isla markaana soo saara sanad kaste arday xifdisan kalaamka Ilaahay kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal isla markaana aqoon u leh xifdiga quraanka kariimka isla markaana ka qayb qaata sidii ay u fidin lahaayeen isla markaana ay u sii noqon lahaayeen macallimiin dadka si baro kalaamka Ilaahay وهيب سريان warbaahinta nolosha islaamka Hargeysa